السلام عليكم وعلي خضاب ولا ليال الله سبحانه وتعالى هايدن حفظي ملك استاد جوجتان هويو ايا waxa laga afduubtay laga qafashay wiilkeedii dagaal ayaa waxa uu dhexmaray muslimiinta iyo Room sidaas daraadeed wiilkeedii waa la qafashay wax badan ayay sugtay iyada oo na garaneen wiilkeedii ma dhintay mise waa uu nool yahay maalin maalmaha kamid ah ayaa waxa dhacday in uu maskiin albaabku soo gargaraaco albaabkii ka furtay waxba uu weydiistay markaasna iyada ayaa daruufeysneed meen haysan waxa u taalo cunto diyaarsan oo ay rabto inay cuntaas kaliya ayaan xaafad u taalay way soo qaaday cuntadii maskiinka ayay siisay iyadoo aad iyo aad ugu baahan waxayna tiraahday Allah yow wiilkayga ii soo celi mise maalmo kama soo wareegin ilaa wiilkeedii waa uu la joogaa waxay tiri subhanallah waxa la soo sidaayay muslimiinta la qafaasho dhan markaas wiilkeedii waxa uu ku dhahay maya kaliya ee la soo sidaayay hooyadii way yaabtay waxay ku tiri maxaa dhacay sabab kaliya maxaa lagu soo sidaayay waxa uu dhahay waxa dhacday anigoo meel fadhiya lugtana ayaga xiran tahay silsilad ayaa si kadisa silsilada ayaa kala jabtay ciidamada way yimaadeen waxay dhaheen maxaa kala jabiyay waxay soo qaadeen silsilad kale way igu xireen iyadiina way kala jabtay way la yaabeen aad bay ula yaabeen waxay dhaheen waxaan weydiinaynaa usqufana yacni waa kristanka baadarga midka ugu sareeyo weey ayaan weydiinaynaa bidhahan kadib waxay weydiiyeen baadargii wiilka ayuu u yeeray waxa uu ku dhahay ma waxaad leedahay hooyo wanaagsan wiilka waxa uu dhahay ha baadargu waxa ku dhahay waxa laga yaabaa in iyada ku soo duceysay oo iska bax sidaasna ayaa lagu soo sidaayay kadib hooyadii way weydiisay wiilka waxa ku jiri goorma ahayd waqtiga arintaas ay dhacday ee lagu soo sideenayo mise waa waqtigii ay maskiinka cuntada siisay marka axibati fillah waxana looga baahan yahay in aan wax sadaqeysano masaakiinta aan wax siino Allah subhanahu wa ta'ala soo anagana noogu naxariisto murugadana nooga feedo taarruf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi shidda waqtiga aad barwaaqaysantahay Allah subhanahu wa ta'ala garo waxa uu ku garanayaa waqtiga ay dhibaatada ku haysato